iyo waagii la abuuray aadamaha goor iyo ayaanba wuxuu ku jiraa halgan u tayada noloshiisa ku hagaajinaya. sifooyin hor leh oo lagaga gudbo dhibaha dabeecadda ayuu nolosha ku dabaqaa, isla markaana uu kaga faa'iidaystaa dheefteeda. sidoo kale wuxuu aadamaha wax ka beddelaa hannaanka fikirkiisa. markii dabil la joogaba wuxuu soo rogaa habab kuwii hore ka duwan oo uu dareenkiisa hoose ku muujin karo. waxaa isbeddela hab walba oo ka mid ah hannaanka geeddi socodka nolosha, taasi oo ku salaysan hadba sabanka la jooga iyo xeerka nolosha ee u yaalla. balse maanta taasi kama jirto nolosha aynu ku noolahay. taasina waa marag ma doonto oo waxaynu u jeednaa halka ay Soomaalidu maanta taagan tahay. waxaa lagu jiraa xilli uu afku joogda gabay oo aqoontii iyo kartidii hal abuurnimadu gaagaxday. waxaa meesha ka baxay halgankii soo jireenka ahaa ee loogu jiray tayaynta nolosha. waxaa suulay fikirkii lagu dhalin jiray sifooyinka cusub ee lagaga gudbo mushkiladaha nolosha. murti Soomaaliyeed baa tiri, naftu inay maqnaatiyo in ay mahad ku nooshahay labadaa mid weeyaan. haddaba maxay tahay gudubta dahsoon ee ka dambaysa maan ufaanidda dadkii shalay lagu yaqiinay aqoonta, kartida, hal abuurka, aftahannimada, hufnaanta, hayalsamida, miyirka iyo miisaanka dheelitirka nolosha? maxaa sababay ubadka tasoobay ee doorkii nolosha gabay? maxaa horseed u ah dhalinta magaca aqoonyaanka ka ah ee iyaguna tasoobay? maxaa inagu dhaliyey saluugga nafteenna iyo quudhsiga quwadda inagu jirta? waa su'aal da'weyn oo u baahan in la faaqido. waxaa la yidhi, nin aan waxa jooga garan waxa soo socda ma garto. godobta dahsoon ee aynu doonayno in aan xeeradeeda daboolka ka qaadno ma ahan mid ka timid arrin iyo laba toon ah, balse waa mid ka timid maraaxil dhowr ah oo isbiirsaday. dad fara ku tiris ah ayaa isweydiiya su'aalahan aan ka dhawaajiyey, iyaguna waxay u sababeeyaan ujeeddooyinka jahliga xambaarsan ee uu jeebka ku wata gumaystaha cusub. taasi waa qayb ka mid ah jawaabaha aynu u baahannahay in aan ogaanno sida ay u dardargeliyeen ujeeddada ay lahaayeen. hase yeeshee in xeerada furka laga qaado kuma filla intaa. si aynu u ogaanno maraaxisha ku lug leh halka aynu maanta taagannahay, waxaa daruuri ah in aan dib u milicsanno sida ay ahayd nolosha waagii hore. waxaa hore loo yidhi, maanta waxa jira waa sii wadista wax horay u jiray iyo gogoldhigga waxa soo socdo. sidaa darteed nimaan ogayn wixii Soomaali hore uga jiray way adag tahay inuu wax ka qabto waxa maanta taagan. weliba tiisa ayaaba loo yaabaa, ilaan waa tii hore loo yidhi, tagto hilmaame tubtii abkii ka taguu ku talaxleeca. si uu qofku u fahmo waxa taagan waa in uu taariikhda dib u raaco. taasi waxay u suurtagelin in uu milicsado waxa soo socdo. sidoo kale waxay door muhiim ah ku yeelan dhinac walba oo ka mid ah nolosha qofka dhallinyarada ah. haddaba nolosha waagii hore siday ahayd, maxaase isbeddelay? haddii anshaxu lumo, waxaa yimaada jahli sababa inuu qofka dareenka dadnimada ka guura. markaan dib u milicsana noloshii hore, guud ahaan noloshu waxay lahayd jaangooyo qorshaysan iyo qaab dhismeed mid waafaqsan ujeeddooyinka
iyo danaha laga leeyahay. waxay ahayd mid ku dhisan tacab, dardar iyo xiise joogto ah oo ka soo jeeda anshaxa, agabaynta, aqoonta, aftahannimada iyo aloosnaanta, taasi oo cimrigeeda dheeraysay. muddo dheer ayuu geediga tub aloosan ku jiray oo nolosha xeer ilaalinayay. waxay ahayd bulsho caana dhan ah kuna xeel dheer dhaqashada xoolaha. waxay ahayd bulsho hal abuurka, halqabsi iyo cunto u yahay. waxay ahayd bulsho hanka iyo hiddaha ku abtirsato oo hunguriga xadhkaysay, gobanimadana xaslatay, tacabkuna u dheeryahay. waxay ahayd ummad xishmad iyo xishood huu u yahay oo baryada aan aqoon. waxay odhan jireen nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday. waxay ku dhaqmi jireen sifooyin islaamnimadu leedahay, taasina waxay u kala saartay xumaha iyo samaha, waxayna ku guteen mas-uuliyadda iyo xilkii saarnaa. tilmaamahana waxay ka muuqataa howraarta dardaarankeeda. waxaa ka mid ah wixii rag u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaa. waxaa kale saddex baa lagu kabaa: aqal xun ardaa wanaagsan baa lagu kabaa, aqoon yar aamusnaan baa lagu kabaa, adduun yar iimaan baa lagu kabaa. lalama heshiiyo nin hawl fadhi ka yaqaan, hadalna faq ka yaqaan, talana fidna ka yaqaan. waayadii hore iyo miyiga, ubadku marka uu dhasho waxa uu dhex imaan jiray bulsho caafimaad qabta oo saxal ka fayow. waxa uu dhex imaan jiray bulsho aqoonta, aftahannimada, hufnaanta, hayalsamida, miyirka iyo miisaanka ka siman. waxa uu dhex imaan jiray bulsho uu qof weliba kaalin ku leeyahay nolosha, ragga iyo dumarkuba mid waliba uu dhinaciisa ka hayo. waxay ahayd bulsho wada nool oo isku nool. waxay ahayd bulsho garan ujeeddada ubadka loo dhalo, ubadka dhex yimaadana uu nasiib badnaa. si kastaba ha ahaatee, kadib markii laga soo gudbay muddo dheer oo loo dhabar adeegay masiibooyin dabiici ah iyo kuwo dad samee ah oo micnaha waxa uu la jeedaa abaaro ba'an iyo haddimo gumaysi, waxaa yimid waddo qalloocan iyo jahwareer dabciya mayalkii adkaa ee nolosha. waxaa burburay jaangooyihii qorshaysnaa ee nolosha, waxaana meesha ka baxay ujeeddadii ubadka loo dhalay iyo tubtii loo jeexi jiray. ujeeddadaasi meesha ka baxday waa mid iyaduna dib u xusid mudan. waxaa su'aal mudan: maxaa loo dhalay ubadka? waxaa loo dhalay in uu taranta iyo tusmada bulshada uu dhex yimid ka qayb qaato. waxaa loo dhalay in uu bulshada uu dhex yimid uu wax ku soo kordhiyo, arrin iyo aqoonba. waxaa loo dhalay in intaas la xusay uu ka sii gudbo oo uu beesha caalamka wax ku soo kordhiyo. waxaa loo dhalay in uu magac iyo maamuus ku soo kordhiyo bulshada uu ka dhashay iyo gaar ahaan qoyska uu ka soo jeedo. waxaa loo dhalay in raganimadiisa iyo dadaalkiisa naftiisa ku mahadiso oo uu magaciisa ku dhex tago caalamka. waxaa loo dhalay in guud ahaan la mahadiyo kadibna uu ismahadiyo. waxaa loo dhalay in geeridiisa kadib taariikhdu xusto oo uu adduunka kaga tago raad uu ku caddeeyo inuu ifka yimid, waajibaad cadcad oo fara badan gutay, kadibna uu ku laabtay halkii loo abuuray iyo guri dambeedkii ilaahay raxmaddiisa iyo raaligelintiisana ku guulaysto. intaas oo dhan ubadku wuxuu gudan karaa marka mujtamaca uu dhex yimid suurtogeliso in ubadku cagta saaro tubta badbaadada, in maskaxda laga dhiso oo anshax
iyo aqoon lagu ababiyo. waxaa gunta loogu xiraa huwiyaddiisa. intaa kadib ayuu ka war doonaa dhinacyada nolosha iyo waxa jihooyinka ka xiga iyo daboolka qaadista arrimaha dahsoon. balse markii intaa la waayo, ubadku wuxuu galaa jahwareer, waxaana meesha ka bixi doorkii uu nolosha ku lahaa. jahwareerku wuxuu ka dhashay nolosha uu ubadku dhex yimid, taas oo astaanteedu tahay mid aan nuur lahayn oo tartan lagu kala baxo ka abaabulnayn, oo ay dadku isdhex tuban yihiin. dadka uu dhex yimidna ay ku nool yihiin nolol maalmo isku mid ah, nolol aan lahayn hawlo iyo himilo dadka kala saara. waxaa iyaduna xusid mudan in ay mar walba jiraan dad wanaagsan oo halgan ugu jiro toosinta tubta qalloocan, laakiin waxa in ay muuqdaan beeniyey inta badan ee meelna buuxin wayday. intaa haddii aynu isla fahanay, aynu jalleecno saamaynta ka dhashay qodobadan aan xusay iyo arrimaha kale ee intaa ka dul yimid. isbiirsigooduna uu inagu dhaliyey saluugga nafteenna iyo quudhsiga quwadda inagu jirta. maandhufaanidda barbaarta maanta. culimmada takhasuska dabeecadaha aadamahu waxay xusaan in badi ilmahu sida ay wax u arkaan iyo fikirka ay saamayn ku leedahay korriimadooda. ubadka marka uu yar yahay, waxa lagu shubo iyo erayada dhegtiisa ku soo dhacdo way dhex degaan. taasina waxaa ka dhasha aragtidii uu ubadku la soo barbaariyey. habfikirku wuxuu ka tafirmaa afkaarta, malaha iyo sida uu shakhsigu u arko naftiisa. sawirka uu naftiisa ka haysto iyo caalamka ku xeeran. ma jiro qof la dhasho sida uu wax u arko ama u fikiro iyo malaha uu ka haysta awoodda waxa uu qaban karo. malaha iyo fikirka xadidan ee uu qofku naftiisa ka haysto waxay ka dhalataa bay'adda uu ku nool yahay, dadka ku xeeran iyo xeerka nolosha ee ay ku dhaqan yihiin dadkaas. ma jiro qof la dhashay fikirka uu naftiisa ka aaminsan yahay iyo awoodda waxa uu qaban karo. waxaa si weyn u saameeya bay'adda uu ku nool yahay. saamaynta waxay dhacdaa laba dhinac. midda koowaad, in laga dhaxlo hab fikir hore u socod leh, iyo ta labaad, in hab fikir taban oo qofka ku dhaliya in uu saluuga naftiisa iyo awoodda ku qarsoon. markii ay bulshadii gabtay inay xaqiijiso doorka oo ay ubadka garaadka ka dhisto, ayay yidhaahdeen ilmaha dugsiyada ha la geeyo. inta aan qodobkan sii gudagelin, aan idin xasuusiyo in arrimaha aan xusay ay yihiin wixii dhaliyey ugu horrayn barbilowga jahwareerka ay maanta ku sugan yihiin idil dhallinyarada Soomaaliyeed. haddaba dugsiyadu doorka ay ku leeyihiin godobta maxay tahay? ugu horrayn, xaggee inooga yimid dugsiga aynu ka hadlayno? yaa meesha keenay? maxay tahay ujeeddada laga lahaa? daruusta la barase siday tahay? iyaduna waa su'aal jawaab u baahan. laakiin dhallinyarada aqoonta leeyihi waxaa la doonayaa arrimahaas inay u istaagaan. dhallinyaradii aqoonta lahayd qaarkood halkan baa laga haystaayo heeryadii gumaysiga ayaa saaran oo brograamyo kale ay ku brograameysan yihiin. bimacnaa marka aadan u fiirsan si cilmiyan aadan wax u raadinin, waa dhibaato in wax lagaa raarido. kol walba waxaad eegaysaa buuggii ay soo qoreen nimankii gumaysaha ahaa shalay ee maaragtay ina kala faquuqay, buugagtoodii unbaa dib ugu laabanaysaa, ayaad ka dhigatay wax la yidhaahdo marjac ka dhigatay. looma baahna, aqoontaada waa inay shaqaysaa.